Welcome back akhayrta kusoo dhawaada qaybteeni 12aad ee programming using Python. Qaybtan waxaan ku qaadan doonaa decision making intii nooga dhimneed oo ah elif statement. Marka decision making waxaan nooga dhimnaa nested if waxaan ka hormarinaynaa elif kadib ayaan nested if qaadan doonaa. Marka hal program ayaan sameyn doonaa si aan u fahanno elif sida u shaqeyso iyo sababta loo keenay. Programming languages kala dhan waxay leeyihiin saddex decision making elif programming language leh ma jirto laakiin else if ay u yaqaanaan programming languages ka kale. Marka waxaan sameyn doonaa program kuu sheegaya numberkaas soo gelis inuu yahay positive ama negative haddii uu ever yahay kuu sheegaya sababta marka elif au keeno waxaa waye condition saddexaad marka laba condition la qabto condition saddexaad oo meesha soo galo elif ayaa la iska isticmaala badanaa. Okay, ayaa marka koowaad sameysan doonaa kadib waxaan ku shubi doonaa number input ah inti input aan dhihi doonaa integer si uu noqdo numberka barofilada noqdo input markaa dhaho kadib waxaan dhihi doonaa soo geli promptiga ka dhigi doonaa enter a number markii la soo geliyo waxaa la jeegareynaa marka koowaad horta numberka marka uu positive markuu yahay waxaa waaye markuu ka wan yahay 0 haddii numberka la soo geliyo uu 0 ka wan yahay waxaan leeyahay waxaa isoo daawacdaa positive. Marka meeshan waa meesha muhiimadda ah elif condition kala meesha imaaday waxaa leeyahay a haddii ay ka yar tahay 0 waxaa isoo daawacdaa negative. condition ugu dambeeyo else ah waxaa soo hari kara numberkii inuusan ka weynin ama uusan ka yarin oo uu la egyahay 0 iska soo daawaca marka aanan gareyno marka koowaad waxaan ku baraaweynaa number la eg number ka weyn 0 positive udhahay oo ka wen yahay mid minus ku baraaweyno okay -1 negative udhahay haddaan 0 soo geliyo wuxuu dhihi doonaa 0. that is marka elif muhiimadda ay leedahay waxaa waaye intaas saddex conditionada hadday bataan waxaa waaye intaas. Nested if ayaan u tegi doonaa qaybta xigta qaybteeni 12aad intaas ayay nooga eg tahay.